إله سبحانه وتعالى ومهد له oo inoo suurtageliyay maanta in madaxweynaha Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam oo noo soo booqday xarunta dhexe ee telefishinka Jubbaland oo in muddo ah aan ku wadnay dib u habeyn iyo dib u casriyeyn xagga qalabka ah iyo xagga goobta laftirkeeda ah sidii aan u hagaajinaynay waxyaabaha aan wax weyn ka qabanay waxa kamid ah stuudiyaha oo aan ka dhignay stuudiyo casri ah caalami ah iyo goobta stuudiyaha laga maamulo iyo waxyaabaha baxaya ee control room-ka ah oo dhamaantood qalabayn iyo dib u habeynba aan ku sameynay waxaan ballaarinay stuudiyaha waxaana qalabaynay stuudiyaha sidoo kale iyo control room-ka saaka madaxweynuhu wuxuu si kadiisa noogu yimid oo lama filaan ah anagoo shaqadanadii iskaga jirna kadibna wuxuu xariga nooga jaray stuudiyo cusba ee aan dhisnay waxa uu madaxweynuhu kormeer ku sameeyay guud ahaan xarunta iyo sida ay shaqadeedu u socoto wuxuuna bogaadiyay hawlaha shaqo ee aan ummadda u hayno wuxuuna nagula dardaarmay in aan shaqadaas aan sii wadno har iyo habeen aan u taagnaano waxaan diyaar u nahay inaan shaqadaas wadano waxaana Ilaahay subxaanahu wa ta'aala aan ka baryaynaa in hawlaha dhimanna uu inoo fududeeyo waxaana Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uga mahad celinaynaa waafajintii uu nawaafajiyay inta qabsoontay iyo dhammaan hawlwadeenadii sida hagar la'aan uga qayb qaatay horumarinta iyo dib u habeynta shaqada ballaaran ee aan wada qabanay